meherad baan fuulay. meheradaasi waxa weeye gabadhaasi cunay macnaha nagu qori jirtay. maxaa yeelo Soomaalida waa taqaanaa qof jeeb wax ku wada kara ma jiro, awoodna ku bari inaan jeeb maanta lacag u qaato ama ku haystaan ma lihi. waxaa dhacday gabadhii in dad badan ay weelashu gacanta kusoo qaataan oo yiraahdaan maartay walaal noogu kan macnaha gabadh wax badan bay dareentay iyo dad badan oo ka tagay oo meesheeda baneeyay. haddii adigu dadka isii baartan waxaa leeyahay ninkaas kuraasta uu ku fariistay iyo meesha wax ku cunaya annagu imaan mayno. waxaa dhacday dhowr maalmood horena waan dareensanaa waxaas. anigu marka waan dareensanaa in arrintaasi xoogaa gabadhaas xaggeeda ista sheekadii horaan kusii xirayna insha allah. gabadhaas marka waxa weeye in meesha cuntada ka cuniyay in rag dad badan oo weliba ehelka ah oo deegaanadaas kasoo jooga Puntland oo nolol ka yimid bay u badnaayeen dadkaas inay ku kala tageen oo meheradii la cilaynayo gabadhii la dhibaataynayo. way muuqata lahayn gabadhii way wax shootay wayna dareemaysaa xanuunkan wax lagu kala qaaday wax lagu kala qaaday way taqaanayeen. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. marka bacda halkaa taala waa lagu keenay xal cashada saakana quraacma doonan. aad iyo aad baan uga niyad sabay ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogto. waxa keenayana jaahilnimada intaa le waxaas lahaa waa lagu soo dhaweynayaa. dad badan baad helaysaa, ehel badan baa maaragtay ka heli doontaa insha allah oo ah haddii ehel waxa ay ahaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan ma aha aniga aan ilaahay. ninkan hadda aad ku arkayseen hordhaca waa Bashiir oo wada garanaysaan oo ahaa ninkii inta badan u ololeyn jiray in cudurkan la yiraahdo HIV/AIDS-ka in la iska ilaaliyo. dad badan oo Soomaaliyeed oo u sheegay inay faafinayaan ka digi jiray. haddaba ninkii waa ka soo tagay Soomaaliya wuxuu yimid meel la yiraahdo Kampala. wuxuu kala kulmay xaalad tii ku adkeed. Bashiir dadka Soomaaliyeed aqoon dheer bay mataqaanay u leeyihiin, aad baana mataqaanaya u naqaana. sidaas oo jirto Bashiir markii uu joogay Soomaaliya iyo markii uu qurbaha u yimid way kala bedelaatay. waxay kala bedelan yihiin bay'ada iyo dadka qurbaha jooga iyo dadka gudaha aad buu kala duwan yihiin. hadda Bashiir wuxuu ka caawinayaa kow iskuul buu tagay, wuu isrisgareeyay, lacagtuu la baxay inuu wax kororsaduu rabay. macallimiinta iskuulka waxay dhaheen maya nin oo mataqaanaa noo iman gurigaad aan kugu barno sida hadda aad afkiisa ka maqlayseen. tii waa ka diiday, lacagtuu ka qaatay wuu iska daayay. waxaasi oo dhan waxaa ka daray makaaxidii uu saaraaye biilka mataqaanaa u saarnaa ee uu ka cunteynayay yaa dadkii nin walba wuxuu soo qaatay saxan u gooni iyo bakeeri u gooni. yani kani urid kana shaay u shub maxaa makhaayadii waxaa dhawaanahan kusoo biirinin cudurkaas qabo, marka cudurkaasaan ka cabsanaya. ninkii waxaa lagu bilaabay takoor aan caadi ahayn. dadka Soomaaliyeed wax badan baa iskaga qasan. cudurkan laguma kala qaado salaan, laguma kala qaado cunto la isla cunay, laguma kala qaado fadhi meel uu fariisood fariisato. intaas badii lagu kala qaadi lahaa makhaxiyaha aan tagna maalin walba ee la fariista imisa cudurkaas qabto oo imaata. maalinka markuu yarto waxaa laga 3 4 5 qof in ay imaato makhaayada iyada. koobka ay ku cabeen in lagu soo shubo wax aad ku cabto, saxankay ku cuneen inaad ku cunto, kursigay ku fadhiyeen inaad kusoo fariisataa laga yaabaa maad qaadid. haddii intaas oo dhan lagu kala qaadayo waxaan fili cudurkaasi dad badan in mataqaanaa uu saameyn lahaa oo weliba uu u socon lahaa sidii mataqaanaa cudurka liidka COVID-19 inuu u socon lahaa. laakiin waxaas oo dhan laguma kala qaado. qurbaha iyo banaanka markii gudaha la joogana way kala duwan yihiin. dadku marna way isjecel yihiin, marna way isnacib yihiin. qurbaha markii la tago inta badan dadka waxaa lagu xantaa Soomaalidu inay isjecel yihiin. laakiin faquuqa iyo cunsuriyeenta waa lagu kala bedelay. Soomaalida inteeda badan waxay dhaqankooda ka mid ah in qofka mataqaanay la faquuqo. Bashiir cudurka markuu ku dhacay oo waliba gabar u calmado guursaday oo kharash ka bixiyay oo u gogol fariistay loo meheriyay ay qaasisay inkastoo uu iska cafiyay wax la cafin kara ma aha, laakiin
iimaankiisa mataqaanaa yaa tusiyey in uu ajir ka weyn uu raadsado uu iska cafiyey. wuxuu sameeyey inuu u sheegay dadkii oo u dhahay cudurkaasaa sidaas igu dhacay. waxaa kale oo ani aada i soo jeetay haddana aan mar horena meeshan kaga hadlay muuqaal uu oga degayo rag qurbaha ka imaado iyo haween iyo kuwa gudaha joogo oo cudurkaas qabo. ragga qurbaha ka imaanaya lacag bay wataan, gabdha yar yar bay aroosaan, kiniinkii bayna wataan kaalmaatigii. gabdhaha yaryarka markay aroosaan oo ay la aqal galaan oo adii 3 bil 4 bil kadib way furaan, haddana mid kale tagaan, mid kale raadiyaan, way guursadaan. ninkii wuxuu soo noqonayaa marka dhowr bil kadib isagoo mataqaanaa ilaa 5-6 dumara soo maray oo intaasna mataqaanaa cudurkii qaadsiiyey. haweenkii baa igana la mid gabdho waxaa jira igana sidaas oo kale u faafiyo cudurka oo xitaa ciddada ku dhamaatay iyo ku dhamaan meesii ma ku jirto. muhiimaddu waxaa weeye kan guurso dhowr bil kadib iska sidaa mid kale haddana. wuu soo bandhigay muu sheegin magacyahooda, laakiin meeshay ka imaadeen iyo waxay yihiin, dawaday qaataan, waxoo dhan mataqaanaa wuu sheegay. laakiin maanta Bashiir isaga laftiisay baa arrintii mataqaanaa ayay haysataayo markii dee intuu ka soo tegay dalkii oo uu Kambaala u yimid in faquuq lagula kaco, in isagii mataqaanaa la takooro, yaa hadda mataqaanaa yaa bilaabtay. faquuqanna dee wax iska jira weeye oo qabaa'il dhan oo Soomaaliyeed yaa mataqaanaa habeeni maalin yaa la faquuqa. hadda ciidan mataqaanaa gabooyada oo kale iyo dad badan jareerta oo kale maxaa lagu faquuqa? dad mataqaanaa Soomaaliyeed oo diin leh oo dhaqan leh oo kula mid weyn saas ay tahay lama guursanaya leeyahay waxa ma la sameynayo waxyaalo badan. marka faquuqaasi wax Soomaalida ku kooban way markii loo fiiriyo dunida kale. way jiraan dad cunsuriyiin ah, laakiin sida anaga Soomaaliya u nahay uma aha, way ka duwan tahay. marka Bashiir dhibaatadaas waa mataqaanaa ayuu ka cabanaya oo kaga cabanaya reer Kambaala oo u yimid oo marti u ahaa. cudurkan haddii lagu kala qaaday kursi lagu fariisto, cunto la isla cuno, iyo bakeeri uu ku cabay oo asna aad ka daba cabtay, ilama ahaan lahayn in xilligan inta uu joogi lahaa malaayiin qof laga heli lahaa. cudurkan haddii sakiin inta qof isku sar dhiig ka imaado adna isku sarta marka iyada waad qaadi, laakiin hadda wax yar banaanka taalo hawadaas mataqaanaa dilaysa. haddii qofka nin naag isqabo oo kale haddii mataqaanaa afka iska waxayaan kadibna mataqaanaa dareeraha candhuufta ay isgaarto oo qofkaana mataqaanaa af uu boo ku leeyahay, idan mataqaanaa waa lagu qaadi. galmadan waa mid caadiga ah lagu qaado dadka ay wada garanayaan. laakiin salaan laysa salaamay, kursi lagu wada fariistay, koob shaah oo ninkan isku cabtay, waxaas oo dhan wax lagu qaada ma ahan. ninkaas takoorka reer Kambaala ha ka daayaan. waa maasantiin muuqaalada sii shargaray asxaabtiina la wadaaga. barnaamijkan iyo kuwa la midna waan sii wadi doonaa, waa wacyigelin dhanka bulshada. waa maasantiin muuqaalada sii shargaray asxaabtiina la wadaaga.